gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliya mudane Farxaan Aadan Hayb waa xafiiskiisa maanta lagu gudoonsiyay shahaado sharaf ah ay ku maamuseen ururka daraasaadka ee Hiigsi munaasabadii gudoonsiinta shahaado sharafkaasi waxaa ka hadlay Xasan Maxamed Muuse oo ah gudoomiyaha ururka daraasaadka ee Hiigsi waxaan ku suganahay xafiiska gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda mudane Farxaan Aadan Hayb oo aanu sanadkan u garanay ama daraasad uu maxad ku sameeyay ay noo soo baxday inuu gudoomiye ku talaabsaday talaabooyin ayna hore komishanka ugu talaabsan oo runtii ay ka mid tahay in la dhiirigeliyo shaqaalaha dawladda iyo dabagalka iyo hirgelinta 16 habraac ee sharciga iyo in lagu monitor gareeyo shaqaalaha dawladdu sidii hay'adaha ay ka shaqeynayaan ay u tayin lahaayeen loo dhiirigelin loo motivate gareyn lahaa gudoomiye isagoo runtii departmentiyada iyo qaabka maxadku u shaqeynaya reform fara badan ku sameeyay goboladana ku balaariyay oo xafiiska ka furay gobolada runtii qaabka recruitmentigana sida uu la sheer gareeyo social media haday noqoto iyo sida transparency-ga loo xayeysiiyo oo runtii aad iyo aad u maxadku ugu bogay saddexda qodob ee markaan maanta abaalmarintaan ku siinayna waxa weeyaan in shaqaalaha dawladda la dhiirigeliyo runtii motivation in ummadda la dhiirigeliya ay tahay wax muhiim ah shaqaalaha dawladuna si ay ugu tartamaan shaqadana wanaajiyaan midba midka kale sanadka dambeeya si uu isku taqalluqiyo mudane gudoomiye waxaanu aad iyo aad kaaga mahadnaqaynaa saad shaqada qaranka had ugu adeegteen muddadii aad xilka haysay guulaha faraha badan ee ku talaabsatay aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa shahaadadana waxay ka turjumaysaa anagoo u garanay inaanu kugu dhiirigelino saad u dhiirigelisay shaqada qaranka inaad naga guddoontaan doonaynaa ku soo dhawow mudane gudoomiye geesta kale mudane Farxaan Aadan Hayb gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa u mahad celiyay dhalinyaradaasi ku maamustay abaalmarintaasi ilaahay baa horta awalan mahad leh mar labaadka maxadka daraasaadka iyo horumarinta taariikhda Soomaaliland ee Hiigsi xubnaha halkan ka maraya waa salaamaya waana ka mahad celinaa xafiiskayga u soo booqataan run ahaan qarankan baa loo adeegayaa waajibna saaran weeye qofku inuu kursiga u fadhiyo maaha oo xil uu magaciisa tilmaan uu leeyahay waa xil buu hayaa la waajiba wixii la qaban karayo inaan waxba ka hakran waa caruurteeni waa walaaladeen waa dadkeeni waa qarankeeni waa bulshadeeni marka wixii aan u sacyi karayno waajib weeye idinkuna hadda garateen inta yara kooban aanu qabanay hadaa aragteen inay tahay waajib in halkan noogu timaadaan waa abaalmarinta way ka gudoomeynaa waana ku mahadsantihiin waxaana siinaysaa fursadda ah inaanu annaguna dadaal badan insha Allah taala qaranka galino idinkana idinka mahad celino garashada aan ula timaadeen aad iyo aad baa mahadsantihiin Salaaman Habeen Laambad warbaahinta qaranka magaalada Hargeysa.